مسكين كان لا سوق هذا كان كورونا لقى سوق بالكي ويا أنا أسوق قدا عنو جمرك مسكين كا إيه هو يدي أنا الشقين أبينا أنا وشقين المهن يسوي بديهين يا وعلك صدق ساعة دوها دور جوات تطبق بقول يكونتم وي ومدة سوا سلامتا مدة كليتو كودران مايو أنيجا مقعي وعبد الرزاق محمد حسين سيدا هالكن لقاش جايبه وحن دجنا هي مقالة إسكالستونا وحن هاي بره أما معلم وحكديجا إسكولا دا إنه إصلاح هاي ريافلي يوبسالا يالكان هالكوا أركي يافلي يوبسالا ومقالوين كان وحكبرتي أو وحن كسو دياري ماستر ديجري أوف إيكونوميكس كدبنا وحن بديش معلمينه وحن كوشقيا معلمينه وحن كجرا جلها ديجان كدجمة إسكالستونا سنة كان وحنو شرحنا هاي قولها ديجان كدجمة إسكالستونا إيو برلمان كقرن كسويدن ريكس دوغن لبدا وحنو شرحنا هاي إنا كقول استويان الرجينية أنت هتان كسول لحظة حسبك شغالها أما حسبك اللي يرادو سوسيال ديمقراطنا أيان أنيقو كمي ده هاي وحنا الدونة يا إنا بالوحير كشيغو سياسة حسبكاس سنة كان مدامة أي تاي سنة دورة شو وقورين سياسة والبا ها تتن بنتلان أما ها تتن سويدن أما ها تتن فدرال كصوماليا وإني أساس لهاي هدي أنا سردق لهاي واحد كسر استوى معنا ما سوينا يان سردق مركا هشو أياد مركا دنعيدا أوبحيسا أو بلارينيسا سردق سياسة حزب السوشيال ديمقراط كوحوي وعدالة يوسنان dadku inay cadaalad iyo sinaan helaan waxa kale oo saldhig u ah dhaqaalaha waxbarashada iyo ilaha dhaqaalaha iyo hantida qaranku leeyahay in si siman oo cadaalad loo qaybsado in qof walbana ay qayb ka gaarto waxa kale oo siyaasadiisa kamida in fursadaha waxbarashada caafimaadka ganacsiga fursad walba oo jirta in aanay ku xirayn jeebkaagu intuu leeg yahay balse ay ku xiran tahay kartidaada qof ahaaneed maxaa yeelay hadii jeebku go'aanka gaaro oo la yiraahdo ninba ninku ka boorso weyn yahay ayuu isbitaalka helayaa ninba ninku ka dhaqaale fiican yahay ayaa iskoolka fiican uu helayaa ninba ninka boorsadiisa balon buugiisu ka weyn yahay baa lala hadlayaa waxa dhumaya qiimihii bini'aadanimada ayaa dhumaya sidaa darteed wuxuu xisbiganu ku salaysan yahay in asaaska noloshu ay ahaato qofku waxa uu yahay bini'aadan ahaan wuxuu yahay kadibna markaa kadib fursadaha dalka ka jirana isku si loo qaybsado aniga oo inagoo ka nimi Afrika iyo Soomaaliya iyo ninka halka ku dhashay ee ku koray in fursadaha dhaqaalaha waxbarashada wax walba u sinaadaan sida ayaa asaaskoodu yahay macnaha waxa kale oo kamid ah macnaha waxyaalaha asaaska u ah in waxbarashada tusaale ahaan uu jiro fursad waxbarasho ay weligeed jirto adiga oo cunug yara iyo adigoo 60 jiray fursad waxbarasho inay jirto oo aan dadka lagu kala xirin boxyo oo la dhiin adigu jaaniska sanadka hore khasaarisay jaanis kale kuma dhina Mareykanka waxay isticmaalaan two strikes and you are away laba dambi baa gashay xabsi baa ku ururtay ma soo noqonaysid dhaqanka noocaasa inaanu dalkan Sweden imanin ay saldhig ahaato in fursadda waxbarashadu ay mar walba jirto asaaska nolosha bini'aadanimaduna mar walba shaqayso wixii dalka uu yaalana waa la wada leeyahay in dadku wada qaybsadaan dawladuna ay dawlad u ahaato dalkoo dhan ee aanay dawlad u ahaanin koox yar oo jeebuura oo jeebka iyo wax ku haysata guryo villooyina degay kooxdaas inaanay dawlad u ahaane dawladdu inay dalka oo dhan dawlad u ahaato miskiinka jidka taagan kan dhaqaalaha aan haysan kan shaqada aan haysan kan tacliintiisu yartahay kan professorka ah kan xanuunsan kan caafimaadka qaba kan dhalinyarada ah kan duqa dhammaan inaad dawlad u ahaato ayaa xisbiga social democratku doonaya ma doonayo kooxda xoogaa dhaqaalaha haysata kaliya in dawlad loo ahaado siyaasadda ayaan u taaganahay isla markaana aan doonaynaa inaan dhaqan geliyo taa markaa intaa kaga soo leexdo dalkan wax yar baan ka taabanayaa dalkan 8 sano ugu dambeysay waxa madax ka ahaa xisbiga
waxaa madax ka ahaa xisbiga dawlad wadaaga oo garabka midida saa wada ogtihiin dhammaantiin waa ogtihiin ku dheeraan maayo laakiin wax yar baan ka faahfaahinaya dawlad wadaag ah oo garabka midiga oo xisbiga moderaadka uu madax u yahay ayaa waddankan madax ka ahay 8 sano oo la soo dhaafay waxaa la sameeyaa waqtiga markuu dhamaato ama wax walba hawl walba oo aad samayso hadday ahaan lahayd iskuulka aad dhigato ganacsiga aad samayso ama wax walba oo aad samayso waxa lagu sameeyaa udba dheeri waa taqaanaan qiimeyn baa lagu sameeyaa maxaa qaldamay maxaa wanaagsan maxaa ii qabsoomay maxaan bedelaa waxaan idinka codsanayaa dhammaan markaa guriga ku noqotaan bal dawladda hadda halka laga sheekeynayay qiimeyn ku sameeya bal waxa u qabsoomay shaqada markii la fiiriyo shaqa la'aanta 2006 shaqa la'aantu waxay ahayd waa 8 sano ka hor boqolkiiba 6 ayay ahayd shaqa la'aanta Sweden guud ahaan markii la fiiriyo maanta waxa weeyaan boqolkiiba 8 wey 80% ayay maraysaa ay ka koray maraysaa yani wax isbedel ma jiro dalkii waxa laga abuuray dabaqaad kala sareeya ayaa laga abuuray waxa laga abuuray dad dabaqaadkoodu sareeyaan oo dhaqaale haysta iyo dad masaakiina oo aan waxba haysan baa laga abuuray kooxo kala duwan baa dalka samaysmay waxyaalaha arkaysaan tusaale ahaan hadda intiinaan meesha isugu timi reer Westeros waxaa degan tihiin Beekby waxaa degan tihiin Valby waxaa degan tihiin xaafadaha maartay Robi xaafadaha aad degan tihiin hadda aan magacaabay reer Westeros hoosna qaandaris baanay maalin walba anigu imaada qof mudaraada ka soo hela oo idin diraya waa home of youth xaafadaha inta gashaan qof mudaraada iska daa qof Soomaaliye qof mudaraada oo carab hadda ka soo heshaan xisbigaas waa fiican yahay ma aha yani wax lagu qiimeeyaa danta wax lagu qiimeeyaa dadka masaakiinta ee cumaalka inagu cumaal baynu nahay muruqeenaynu maalaa dadka cumaalka ee dalkan ka jira Sweden boqolkiiba 98 waxay u codeeyaan xisbiyada garabka bidix bay u codeeyaan xisbiga moderaadka tusaale idin siinaya dhamaantiin waxa laga yaabaa walaalihiin baa iskoolka dhigta waxa dhigta dadkiina dhigta iskoolka waa ka wada wahaynaa anigu macallin baan waxa weeyaan waxyaalaha la sameeyay waxa kamid ah in laga dhigay wax walba private in laga dhigay wax walba waxa jiro shirkado hadda waxa jira waag hore waxa jiri jiray ardayda maadooyinka kulliita iskuulka ayaa lagu caawin jiray waxa la siin jiray maataha xisaabta juqraafiga taariikhda sayniska iskuulka ayaa lagu dhex caawin jiray iskuulka ayaa ku tashan jiray macallimiinta iskuulka ayaa caawin jiray hadda maxaa dhacday waxa la sameeyay oo xisbiga hadda laga sheekeynayo antigosigu uu sameeyay in Lexiel baha la soo gato shirkadaha jira laga soo gato aniga wiilkayga wuxuu dhigtaa dugsiga sare u dhigtaa haddii aan doonayo qof caawina waa inaan u soo gadaa shirkad waa inaan uga soo gadaa saacadiiba 250 saddex saacadood hadduu u dhigo waa 750 wey waa inaan u soo gadaa cunuga marka miskiinka ah ee hooyadii aanay shaqayn aabihiina aanu shaqayn oo ilmaheena say u badan yihiin yaa u cidaka maxaan marka anigu sameeyay waa diiday inaan soo gato waxaan sameeyay Soomaalidu baan dhex galay waxaan idin adigu maxaa ku fiican tahay xisaab adigana juqraafi adiguna chemistry adiguna physics aan isku darsano ilmaheena aynu caawino inagu istaagno marka maxaa dhacday siyaasadda noocaasa isbitaalada hadda Dandiri gudihiisa isbitaalka Dandiri waxa ku dhex yaala haddii adiga dhabarku ku xanuunono isbitaal meel baa lagu dirayaa haddii ninkan dhaqaalaha fiican dhabarku xanuunono meel baa lagu dirayaa lugta haddii laga qalayo meel baa lagu dirayaa adiga dhaqaale maadaama aadan haysan ninka dhaqaalaha haysan meel baa loo dirayaa Soomaalida marka boqolkiiba hal ma dhama Soomaalida moderaadka kamida ninkii isagu ismoodaya marka haddii macnaha aad leedahay adiga dhaqaalahaagu fiican yahay anigu dhaqaalaha kayga kama fikirayo aqoonyahan baanahay Soomaalida walaalahayga mas'uuliyad baa iga saaran haddii xataa waxa weeyaan marka sidaa darteed waxaan idin leeyahay kala sareynta iyo waxyaalahaas oo dhan in aynu xisbigaas dalka la kala qaybinayo sida Mareykanka oo kale laga dhigayo waxaan ku soo gabagabaynayaa inaynu waxaynu kala dooran doonaa in Sweden la kala sareysiyo dabaqada loo sameeyo iyo inay Sweden ahaato dal sideedii hore oo isku dhagan oo macnaha miskiinkana la soo qaado kan korona laga soo baalkiyo weeyaan waxaan ku soo gabagabaynayaa hal daqiiqo haysataa baa leeyahay waxaan ku soo gabagabaynayaa sidatan waxaan idin leeyahay horta waxa weeyaan dad aqoon loo wax kala qiimeyn kara baatiin
idina amri mayo laakiin waxaan leeyahay u coday isbedel caam ah u coday cilmi baaris u coday cilmi kororsi u coday caafimaad u coday shaqo caboon u coday iska caabinta cunsuriga u coday caafimaad loo dhan yahay u coday ummad cizi leh u coday cadaalad iyo sinaan u coday xisbiga shaqaalaha social democrat